عندك دي لبسيني كسر دوادا جنالكي مدني حسين كسر دوادا ولا ليال مركا كوباد يا مركا لباد يا مركا صدحات با إنيغا أيان نسو دوينينا waxaan igu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gibi maskax wala furan oo iniga inay shaqeynaysa igu soo dhaweynayna maanta waxaan ka hadlaynaa caqabadka haysta Soomaalida turkiga joogta gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee turkiga jooga meeshay doonana ka yimaadaan hadday Djibouti ka yimaadaan iyo hadday Soomaaliya ka yimaadaan iyo hadday Kenya ka yimaadaan iyo hadday Ethiopia ka yimaadaan meel kasta oo Soomaali degan tahay iyaan ka hadlaynaa ardayda caqabadaha haysta dalka turkiga iyo sida looga baxo caqabadu way ku dhacdaa laakiin sidee loo xalin karaa weyn caqabada ayaan doonaynaa maanta inaan ka hadlo walaalayaal waddankan aan ognahay horta kulli waddan walba wuxuu leeyahay maxaan ku rahaa shuruuc iyo qaanuuno u gaar ah ayuu leeyahay inkastoo iminka baryahan sanadadan dambe oo isbedelay maxaan ku rahdaa shuruucda ama systemka loola dhaqmayo magaalooyinka ardayda ay isbedelay waxaan leenahay oran lahayn ama markasta aan leenahay walaalayaal waxaad ka digtoonaataan waxyaalaha soo socda waxaanad u hogaansanataan waxyaalahan soo socda ee ni sheegi doono marka horeysa waddankan marka la yimaado qofka hadduu ku imanayo fiiso dalxiis hadduu ku imanayo waxaa la siiyaa muddo gaaban oo muddaha fiisaha aanan ardayga ahayn iqaamaduhuna way kala duwan yihiin sidaad ogtihiin ba iqaamadda dalxiiska iyo iqaamadda maxaan ku rahdaa itidiyonga iyo ama ardayga iyo iqaamadda maxaan ku rahdaa caafimaadku way kala duwan yihiin iqaamadda caafimaadka waxaa la qaataa sanad inkastoo taa dalxiiska markii hore sanad la qaadan jiray laakiin iminka laga dhigay 6 bilood mararka qaarna looba diidayaba qofka oo reject la siinayo iska noqo loo oranayo taasi waa taas midda kale waxaa jirta maxaan ku rahdaa qofka waddanka markuu soo galo waddankan waxaa lagu dhaqmaa luqadiisa ayaa lagu dhaqmaa luqad kale laguma hadlo waa dhif iyo naadir inaad aragto qof Turkiya oo ku hadlaya luqad kale luqad carabi ama ingiriis faransiisna haba sheegin ayaad arkaysaa laakiin aan usoo daadegno nuxurkeena waxa weeyaan caqabadaha ardayda haysta sidee bay ardayga waddankan waxbarasho yimiday sidee buu waxbarashadiisa ku sii wadan karaa oo uga badbaado inaan reject la siinin ama si waddanka aanan laga masaafurinin oo la oranin fiisa kala dib u soo qaado sidee buu uga badbaadi karaa wuxuu uga badbaadi karaa sidan soo socda walaal horta marka koowaad ee waddankan turkiga timaado haddii aad arday tahay waa inaad toos u tagtaa magaalada aad ku qoran tahay waa inaad toos u tagtaa waa inaad maxaan ku rahdaa aad la xidhiidhaa dad si xog xaqiiqo ah kuugu sheegaya wax inta badan dadkeena Soomaalidu sida runta iskuma sheegno oo qofkii bilaadankii oo si khalad ku sugan waxaad ka oranaysaa maxaan ku rahdaa halkan iska joogo halkan bad wax walba ka helaysaa ayaad ka oranaysaa laakiin sidaasi si soconaysa ma marka qof walba oo arday ah oo waddanka turkiga imanaya waxaad ku qasban tahay inaad tagto magaalada aad ku qoran tahay haddii aad caasimadda ka qornayd Istanbul ha ahaato ama si Ankara ha ahaato haddii aad ka qornayd maxaan ku rahdaa gobolada uu ka kooban yahay dalkan turkigu mid kamida gobolkii aad ku qornayd waa inaad tagtaa iqaamadaada gobolkii waa inaad ka qaadataa haddii kale iqaamad laguma siinayo oo waxaad qaadanaysaa reject ama si dib u celin si aad fiisa dambe u soo qaadato walaalayaal taasina waxay kugu keenaysaa adoo markii horeba ana maxaan ku rahday dawladii ku soo dirin oo naftaada isa soo dabaray oo waalid maxaan ku rahday wax ka soo qaaday oo sidii lagu soo bixiyay ilaahay oga haddana caqabadkii iyo dhibaatooyinkii aad hore u soo martay inaad haddana mar kale la kulanto sidaa daraadeed haddii aad doonayso inaad ka badbaado walaal waanadayda dhageysta ama hadalkayga inaad dhageystaan weeyaan inigoo raalliya anoona nigu khasbaynin haddii aad doonayso inaad ka badbaado caqabadaha reject sidaan lagu siin ama sidaan dib lagugu celin oon lagu oran fiisa labaad soo qaado haddii aad doonayso inaad ka badbaado ardayow waa inaad tagtaa gobolka aad ku qoran tahay waxaa jirta arday ka qoran gobolada maxaan ku rahdaa xuduudda la leh maxaan ku rahdaa Syria gobollo dhaadheer ka qoran baa jirta ardaydaas markay magaalada Ankara yimaadaan dad qaar baa ka oranaya war tombaradan ka jira Ankara iska dhigo kuwan bad kimli ku helaysa kuma helaysid walaal taas aniga kaaga ballana waa dhif iyo naadir qofka ku hela berigii hore waa lagu heli jiray oo waa lagu qaadan jiray laakiin iminka qaanuunka soo baxay qof walba waxa weeye magaalada uu ka qoran yahay inuu ka qaato sababtoo ah waan ku badanay dalkii ardaydii way ku badatay
maxaan ku raday qof walina uu ku batay oo Soomaalidiina waan ku badanay wadanka sida daraadeed waa inuu qof walba uu ka qaataa kimliga gobolka uu ku sugan yahay arday badan waxaan kula kulmay Ankara oo dhibaatadaas ay ku dhacday qaar reject la siiyay oo dib loogu noqonayo wadankoogii oo kuwa reer Djibouti waan la kulmay kuwa reer Soomaali waan la kulmay kuwa kale oo wadamada kale Kenya iyo maxaan ku raday Ethiopia ka yimid oo Soomaaliya waan la kulmay waan wada arkay kuwaas oo dhan ardaydaas dhibaatada haysata waxa weeyaan inay maxaan ku raday gobolkii laga soo qoray ama si dadkii jaamacadaha soo qoray gobolkii oo ka soo qoray inayna tegin oo caasimada Ankara joogeen kadibna toomar iyo dhulkan iska qorqoreen Ankara kadibna fiisi iqaamadii sida lagu diiday rejectin la siiyay dibna ay ugu noqonayaan wadankooda iyo fiisi kale soo qaadanayaan si aad uga badbaado mar kale wax kugu celinaya inaad tagto gobolka aad ka qoran tahay inaad tagto midda labaad aan ku sheegay walaalayaal jaamacadaha wadanka Turkiga waa inta badan dadku waxay dhigtaan jaamacadaha dawladda waxa briefega wax dhigtay way iska yartahay jaamacadda briefega way iska yartahay marka sida daraadeed ardayo waxaad rabtaa toomarada markaad gashid aan jaamacadda ku dhex oolin in jaamacaddu lahayn markaad gashid inaad jaamacadtii gashaad rabtaa shahaadada aad ka qaadato toomarka caasimada ku yaala in jaamacadda aan xiriir la lahayn ama sida active iyo maxaa kula kuwa lamida toomarada dadku iska leeyihiin ee briefega ah inaan jaamacad ku jirin markii aad dhigato shahaadada ka qaadato walaalow laguma aqbalayo jaamacad sida daraadeed waxaan ka codsanayaa si aad waqti aw kaga khasaarin lacagna ayna kaga khasaarin inaad marka u horeysa wadanka timaadaba jaamacada aad qoran tahay luqadda aad ka dhigato sida daraadeed haddii aad jaamacadda aad qoran tahay hadhow tole doonaysid inaad iska bedesho oo filiyerka aad doonaysid ama facultyga aad doonaysid kulliyadii aad doonaysid ayna ku oolin ama si aad magaalada iska nacayso magaalo kale doonaysid aad tagto si ay shahaadada luqadda eed ka qaadato jaamacaddaas ay ku anfacdo oo jaamacadda kale ugu gashid waa inaad maxaan ku raday ka dhigatid jaamacadda aad qoran tahay luqadda waa inaad luqadda ka baratid taas weeyaan walaalayaal waayo haddii aad toomaradan briefega ah ama privateka sida gaarka loo leeyahay haddii aad wax ka barato oo shahaado ka qaadato jaamacaduhu ma aqoonsana mana aqbalayaan shahaado ka qaadato sida daraadeed adigoo sanadan luqadda halka ku soo dhiganayay oo Ankara joogay oo ku soo dhiganayay luqaddaasi marka shahaadada ay ku siiyaan haddaad haddana jaamacad la aado jaamacaddii kuma aqbalayso dib toomar usoo biloobay koranaysa imtixaan bay ka qaadaysaa imtixaanka haddii aad hesho adiga nasiibka jaamacaddii waad bilaabi haddii aad imtixaanka weydana dib ayaad usoo bilaabaysaa toomar ayaad dib usoo galaysaa oo luqad baad dib usoo bilaabaysaa ta labaad toomaradan luqad imtixaanka ay ka qaadaan ee buugaanta luqadda ay ku dhigaan luqadda imtixaanka ay ka qaadaan iyo kuwa jaamacaduhu shaqo isku male kuwa luqadda jaamacadda ayaa ka adag kana tayo sareysa sida daraadeed intuu waqti kaa khasaari lahaa ee sanad labaad luqad dhigan lahayd ama inta maxaan ku rahdaye aad ku dhici lahayd imtixaankaas walaal waxaan kaa rabaa ama kaa codsanayaa waa danteenna oo dhan weeyaan waxaan niga codsanayaa inaad jaamacadda aad ka qoran tihiin aad toos u aadaan ayaan niga codsanayaa si aad halkaasi dibloomkii luqadiina uga heshaan maxaan ku rahay waxbarashadiina uga sii socoto kimligiina ama iqaamadda waxa loo yaqaano aanan reject lagu siinin oona dib lagugu celinin dhibaatadii iyo caqabaadkii aad soo martay ana dib kale ayna kuu qabsanin markaas fadlan inta daawataha sii shargarayso oo sii gaadhsiiso maxaan ku rahdaye asxaabta kale Soomaaliyeed ardayda meel kasta joogta sii gaadhsiiso midda kale haddii ay jirto arday rabta inay jaamacad iska diiwaangeliso oo aanan jaamacad haysanin oo doonaysa inay jaamacada iska diiwaangeliso waan u haynaa jaamacadaha iska diiwaangelinayeen diyaarna waan ula nahay fadlan anala soo xidhiidhaan maxaan ku rahday waan diiwaangelinaynaa intay doonan ahaadaan hadday 50 yihiin hadday 100 yihiinba nin walba facultyga uu doonayo waa loo soo helayaa jaamacaddana waa la diiwaangelinayaa waana la geynayaa sida daraadeed taasna waa bishaaro sidaa ula socda intaas ayaan barnaamijkeenu ku egyahay intaasna waa waano aan iniwaaninayo oon iniga digayo caqabaadka aad soo marteen dib ay inigu noqon oo dhibaato kale ula kulmin aan iniga digayo weeyaan walaalayaal intaasay barnaamijka aan hayneen walaalihiin aan inigu gargaaraynana diyaar ayaan ula nahay intaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka halkaas ayaad kala socon doontaan barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo la halmaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu